وعن daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijka kobciga Islaamiyiinta Soomaaliya. Barnaamijkan waxa xuquuqdiisa iskala Cabdishakuur Mire Aadan oo isagu kamid ahaa dadka aaminsanaa fikirkan xaq jirka ah. Aasaaskii Al-Ahli Al-Islaam 1973 ayaa si qarsoodi ah loogu aasaasay Al-Ahli Al-Islaam guri ku yaala waa bari magaalada Muqdisho kaasoo ka soo horjeeday daarta dabka wadada Maka al-Mukarrama. waraysi Sheekh Maxamed Garyare uu siiyay shabakada Somali Today wuxuu ku naqdiyay Al-Ahli Al-Islaam isagoo ku sheegay in la bilaabay 1968 waxaana hadalkiisa kamid ahaa nidaam sharci iyo kala dambeyn ma lahayn Al-Ahli Al-Islaam waxaana markii hore loo dhiibay nin lagu yiraahdo Cabdikariin Xirsi suufi ayuu isu bedelay kadibna waxaa madax u noqday Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud. Dr. Ahmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Cabdikariin Xirsi wax shuqul ah uusan ku lahayn Al-Ahli Al-Islaam wuxuu madax ka ahaa xisbi la oran jiray Al-Ittixaad al-Shabaab wuxuuna xisbigaasi ku ekaa waqtigii kacaanka mamnuucay asxaabtii dalka ka jiray oo dhan. Sheekh Cali Warsame waraysi uu siiyay Somali Today wuxuu ku qeexay Al-Ahli Al-Islaam in ay ahayd xarakadii ugu horeysay ee laga aasaaso koonfurta Soomaaliya. Raggii Al-Ahli Al-Islaam aasaasay waxaa kamid ah Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, Cabdiwaaxid Xaashi iyo Cismaan Rooble Cabdulle iyo culimo kale. Waxaa la oran karay in aasaasida Al-Ahli Al-Islaam inay u muuqatay tallaabo ismiidaamin ah waayo may dhici karin kacaanka oo dardartiisii qaba in waqtigaasi laga dhex abuuro xarakaad islaami ah oo ka soo horjeeday afkaartii kacaanka hanti wadaaga ku dhisnaa. xubnihii Al-Ahli Al-Islaam aasaasayasheedii kamid ahaa Sheekh Cabdiwaaxid Xaashi ayaa sheegay kir ahaan aasaaskeeda Al-Ahli Al-Islaam waxaa lahaa Cabdicasiis Faarax. wuxuu kaloo sheegay in saldhigga siyaasadeeda ahaa in Soomaaliya lagu xukumo shareecada Islaamka iyo in dadka maskaxdooda laga saaro afkaartii xumeyd ee laga dhaxlay gumaysigii dhammaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhan kasta oo diinta laga duway. dhabtu waxay ahayd in la sameeyo isbedel dhammaystiran iyo in meesha laga saaro aragtidii dhaqankii khilaafsanaa Islaamka ee uu dalka Soomaaliya ku beeray gumaysigii. Al-Ahli Al-Islaam kulankoodii ugu horeeyay ayay ku doorteen Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud waxayna ahaayeen xubno koox isu qaybiyay. Sheekh Cabdiwaaxid Xaashi ayaan weydiiyay Al-Ahli Al-Islaam mabaadi'diisu sir ma ahayd waxaana iigu jawaabay ururka Al-Ahli Al-Islaam sir ayaa uu ahaa laakiin mabda uu fidinayay sir ma ahayn. dhalinyaradii Al-Ahli Al-Islaam waxaa saldhig u ahaa masjidka Cabdiqaadir ee ku yaala eelgaabta magaalada Muqdisho waxaana tafsiirka Quraanka ka soo jeedin jiray Sheekh Maxamed Macallin xilligii hanti wadaaga ka calan waleynayay Soomaaliya. Sheekh Maxamed Macallin Xasan wuxuu ku dhashay miyiga Buur-Hakaba 1934 Quraanka ayuuna ku bartay wuxuuna dhameeyay isagoo 9 jir ah. kadib cilmi kororsi diineed ayuu ugu kictimay magaalada Harar ee uu wax ku baranayay 20 sanadood. 1952 ayuu soo gaaray magaalada Hargeysa isagoo tafsiirka Quraanka ka bilaabay masjidka Jaamaca ee magaalada Hargeysa. Sheekh Maxamed Macallin safar aqoon diineed ayuu ugu kictimay mar labaad Masar wuxuuna arday ka noqday macadka Al-Azhar. kolkuu dhameeyay wuxuu aqoon heer jaamacadeed ah ka bilaabay jaamacadda Al-Azhar wiladeeda usuuludiin iyo qaybteeda caqiidada iyo falsafada. ma dhamaysan shahaadada laakiin dalka ayuu ku soo laabtay 1968. Sheekh Maxamed Macallin Xasan wuxuu kamid ahaa tiirarka Islaamiyiinta Soomaaliya ee fikirka fog. marar kala duwan ayaa kacaankii xiray intii u dhaxaysay 1975 iyo 1983 waxaa mar labaad la xiray 1984 wuxuuna ku xiraan jiray xabsiyadii la kor oran jiray 20 jirow iyo laanta buuro oo ah xabsiyadii ugu weynaa Soomaaliya. marka la tiriyo muddada uu xabsiga ku jiray waxay noqonaysaa 11 sano oo maxkamad la'aan ah waqtiyo kala duwan. Sheekh Maxamed Macallin Xasan tafsiirka Quraanka ee uu ka akhrin jiray masjidka Sheekh Cabdiqaadir wuxuu bilaabay September 1968. Al-Nahda Al-Islaam ayaana u soo dirtay hawshaasi. Sheekh Cabdiqani Sheekh Axmed ayaana ka codsaday wadaadadii qaadiriyada ee masjidka hayay in ay u ogolaadaan in uu tafsiirka ka akhriyo masjidka Cabdiqaadir. shuruuda kali ee ay ku xireen ayaa ahayd in aanu Sheekh Maxamed Macallin oo kale ku noqonin Sheekh Nuuruddin Cali Colow. sidaasi ayuuna ku bilaabay tafsiirka masjidka Cabdiqaadir oo ahaa meel ay ku soo xirnaayeen waqtiyadaasi dhalinyaro baahi u qabay barashada diinta Islaamka sida ganacsatada, aqoon-yahano, saraakiisha ciidamada, shaqaalaha dawladda. goobtaasi masjidka Sheekh Cabdiqaadir waxay ahayd meeshii Islaamiyiinta Soomaaliya ka bilaabmeen xilli Soomaaliya ay ku jahawareersaneed hanti wadaaga cilmaaniga. mar idaacadda BBC-da waraysi la yeelatay Sheekh Maxamed Macallin wuxuu sheegay in kacaanku markii ugu horeysay u magacaabay agaasimaha diinta. waxaa kale oo ku daray 13 golayaasha hanuuninta dadweynuhu ay ahaayeen goob laga faafinayay hanti wadaaga. sirta qarsoon ayaa waxay ahayd in Sheekh Maxamed Macallin dhalinyaradii baraaruga jiritaanka ururka Al-Ahli Al-Islaam la socodsiiyeen dhamaadkii 1974 walow Sheekh Maxamed Macallin Xasan uu ahaa Al-Ahli Al-Islaam udub dhaxaad ay ku soo hirtaan. sidee xilligaasi kacaanka awoodda lahaa ururo islaami ay uga dhex shaqeynayeen oo ka soo horjeeday mabaadi'dii kacaanka ayaa la weydiiyay. waxa uu yiri ururka Al-Ahli Al-Islaam magaciisa dhabtahay waxa uu ahaa
al-ahli al-islaam afgarad waxaa noo ahaa ahalkii ka waran maalin walba waanu kala war qaadan jirnay annagoo dhami waxaan isugu xirnayn si koox koox ah annagoo ka howlgalaynay goobaha bulshada joogto sidoo kale Dr. Saadiq Eenow waxa uu kale sheegay iskuulka waan isku xirnayn tafsiirka masjidka Cabdiqaadir kolkuu dhamaado waxay qaarkeyn aadi jireen masjidka Marwaas oo Sheekh Ibraahim Suuli ka akhrin jiray kitaabka Riyaadu Saalixiinka markii la xiray Sheekh Maxamed Macallin waxay dhalinyaradii la soo ifbaxeen baraarug xoog leh masjidka Cabdiqaadir ayaana salaada casar kadib waxa tafsiirka ka akhrin jiray Axmed Nuur Carab salaada maqrib kadibna Ismaan Cabdulla Rooble ayaa isagana ka akhrin jiray kitaabka Riyaadu Saalixiinka maxaa sabab u ahaa in aan sirdoonkii kacaanka xog badan ka haynin qaabka al-ahli al-islaam u howlgali jirtay ayaa la weydiiyay Sheekh Cabdiwaahid Xaashi wuxuuna yiri horta sideedaba qof la hubiyay ayaa xubin ka noqon jiray al-ahli al-islaam dabagal badan xaaladiisa kadib ayaa qofka xubinnimada la siin jiray al-ahli al-islaam waxay aad u doonayeen in ay ka hortagaan wacyigelinta kacaanka oo si weyn isugu dubariday dadka badankiis waxaana jiray golayaasha hanuuninta dadweynaha oo dadkii badankiisaba qulubtooda la wareegay intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii saddexaad ee kobcii islaamiyiinta Soomaaliya fadlan la soco qaybaha xiga oo ka xiiso badan qaybihii hore